Mas'uuliyiin uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Injineer Jibriil Maxamuud Aadan ayaa maanta waxa uu booqday iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo kuwaasi oo la doonayo in laga dhaqangeliyo manhajka waxbarasho ee dhawaan uu furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Injineer Jibriil Maxamuud Aadan oo ah wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed oo saxaafadda kula hadlay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ka warramay in sare loo qaado adeegyada waxbarasho ee Koonfur Galbeed. geega kormeerkana mayba ka saabsanayay dhammaan shaqaalaha wasaaradda mayba kormeerasay iskuulaadkii anoo wasiir ku-xigeenkii horkahay ujeedkana may hayay sidii lan kormeera lahaayay manhajkii maalin dhaweyd la dhiibay oo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed nin daafuri manhajkaas iskoolaadkii la siiyay tiradii oo manhaj hay buugaag haytii ka koobnaayeen oo iskuulaadka deeri inuu ogaana iyo grade 1 ilaa grade 8 iskuul walba maado walba walaa ku deeri inuu helna oo wasaaradda ogaata saxadhow may leeyahay lanka kormeer manhajkaasay oo iskuul walba la siiyay iyo imtixaanaadka oo lagu qaado doona manhajkaas lagu qaada saxadhow may leeyahay wareeranka dhina mahna deerni iyo lan erna dartiya geeka wasaaradda kormeerkaas soo bidi. Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku sii fidaya adeegyada waxbarasho maadaama dadku ay ku baraarugeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada. Waa kan Injineer Jibriil oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen dadaalada uu geliyay adeegyada waxbarashada. may balahay bulshada ka faa'iideeyay iskuulaadkii manhajkaas deeri dhammaan walaa iskuulaadkii public ahaayeen ama iskuulaadkii dawladda lahaayeen oo isticmaaleen private-ka hadda may ba helnay iskuulaad badan oo beeslange oo free education madaxweynahan hore ballan qaaday iskuulaadkaas may ba kumid iskuulkan Koonfur Galbeed iyo iskuulkan Alceen iyo iskuulkan Sahal Maal Ciise iyo iskuulkan Dr. Ayub Shaasharow iyo Hulwadaag iyo may kumid iskuulkan Leerow Abdalla Deerow Saak iyo Sahal Maal Ciise iskuul Leerow Nuur Islaam dhammaan iskuulaadkaas may ba ayna iskuulaadka beeslaanta ee dawladda macallimiinta oo dhaqaalaha dhiibaayta walaa lan baahnaaday oo fasiilaad iskuulkaas baahnaayn wasaaradda Koonfur Galbeed hayte marka manhajkaas deeri macallimiinta hadii manhajkii deeray macallimiintana may leeyahay minshaarjo la biyahay marka manaqada koran iskuul oo qarash laga qaado manaqada koran hal ku faa'iideysado waxbarashadaas free hal ku faa'iideysado. Xuseen Ali Geesay 5 TV Baydhabo.